بسم الله الرحمن الرحيم habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caawa ee bada aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah xaaladda waddanka Yemen ayaa lugaha la sii galaysa mid aan la hubin iyadoo xiisad culusna ay ka dhex aloosan tahay Imaaraadka iyo Sacuudiga wasaaradda arrimaha dibadda Imaaraadka war ay gordhawato soo saartay waxay si adag u beenisay eedeymo Sacuudiga uga yimid waxaana tani ay ku soo aadaysaa iyadoo madaxtooyada waddankaasi Yemen xulafada la ah Sacuudigu ay ku dhawaaqday in Imaaraadku ay isaga baxaan waddankaasi 24 saac gudahood laakiin sida muuqata Imaaraadku arrintaasi waa ay ka dhaga adeegayaan waxaan idin soo gudbinaynaa xaaladan iyo weliba jawaabaha kulul ee laga bixinayo madaxweynaha waddanka Iran oo si adag uga jawaabay hadalla xalay ka soo yeeray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo hanjabaadana ay ku larraayeen dalka Suuriya magaalada Daakhiya waxaa la sheegayaa in badow lagu soo rogay kadib qurqurtooyin halkaasi ka dhacay oo dad ay ku dhinteen dhammaan wararkan iyo weliba xubintii falaqaynta oo aynu ku eegayno saamaynta Masar ay kala kulmi karto aqoonsiga Israa'iil ee Somaliland oo khubar ay ka hadlaysana qaybta dambe ee barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbinaynaa mudacadiyo wararkan isku soo duway ayaa qadka ku jira maxamed aan ku bilowno qodobada wararka oo kuwada ugu waaweyn waddanka istaga Imaaraadka Carabta ayaa beeniyay eedeymo lagu sheegayo in cadaadis ay Imaaraadku saarayso golaha kumeel gaarka ah ee koonfurta Yemen STC loo yaqaano taasoo khatar gelinaysa amniga waddanka dariska ah Saudi Arabia sida laga soo xiganayo wakaaladda wararka ee rasmiga ee WAM ayaa waddanka istaga Imaaraadka Carabta uu ku sheegay inay aad uga xun yihiin bayaanka ka soo baxay waddanka Saudi Arabia oo ay ku sheegayso doorka Imaaraadka ee Yemen ee dabka looga huranayo dhinacyada Yemen waxaa sidoo kale ay cambaaraysay waddanka istaga Imaaraadka oo cambaareeyay eedeymaha ku andacoonaya in waddanka istaga Imaaraadka Carabta uu cadaadis saarayo dhinacyada qaarkoodna uu hagayo iyo dhinac kasta oo Yemen ah oo qaada howlgal military oo khatar gelin kara ama yareysan kara amniga waddanka aan walaalanahay Saudi Arabia inayna raali ka ahayn isla markaasna la bartilmaameedsado xuduudka waddanka Saudi Arabia sidoo kale waxa ay beenisay eedeymaha la xiriira in ay hub maraakiib saaran u dirtay xoogaga golaha kumeel gaarka ee koonfurta Yemen taasoo colaadda halkaasi ka jirta sii horanaysa waxaana Imaaraadku ay xaqiijinayaan inay ka go'an tahay amniga iyo xasiloonida waddanka Saudi Arabia ayaa mar hore sheegtay inay aad uga xun tahay tilaabooyinka waddanka istaga Imaaraadka Carabta iyo inay cadaadis saarayso xoogaga golaha kumeel gaarka ee koonfurta Yemen oo howlgallo military ka wada xuduudka waddanka Saudi Arabia waxayna ugu baaqday in khatar uu dhaqdhaqaaqaasi ku yahay amniga qaranka ee waddanka Saudi Arabia arrintaasna ay tahay khad cas xukuumadda Suuriya ayaa ku soo rogtay habeenkii bandow magaalada Latakia kadib markii ay rabshado ka dhaceen gobolka ay u badan yihiin dadka calaawaadka tanna waxay dirdirgelisay cabsida laga qabo in kooxaha laga badan yahay la carqaladeeyo sanad kadib markii xukuumad kumeel gaara ay awoodi la wareegtay wiiraan 3 qof ayaa lagu dilay weerar hubaysan iyadoo ay mudaharaadyo isugu soo baxeen gobolka Litania kumanaan qof oo ku baaqaya calaawaadka waa in ay ka mudaharaadaan masaajidka la qarxiyay ee ku yaala magaalada Xums laba kamida ciidamada ammaanka ayaa toogtay sida ay sheegayso hay'adda xuquuqda walaaleysa ee la yiraahdo Syria laga leeyahay kadib markii xiisahani ay bilowdeen ayaa magaalada Litania wasaaradda arrimaha gudaha waxa ay ku dhawaaqday in lagu soo rogay bandow la xalgalaya saacadda marka ay tahay 5 galabnimo ilaa iyo 6 aroornimo ee maalinta xigta madaxweynaha waddanka Iran Mas'uud Pezeshkian ayaa cambaareeyay hanjabaadda Mareykanka iyo Israa'iil ay dagaal hor leh ku qaadayaan dalkiisa wuxuuna ku nuuxnuuxsaday in waddanka Iran ay si xoog leh uga jawaabi doonto weerar kasta oo lagu soo qaado warar ka mid ah baraha bulshada ayaa Pezeshkian waxa uu ku sheegay in jawaabta Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran ay noqon doonto
weerarka lagu soo qaaday cadaalad darrada ah mid xanuun badan oo laga shallaayo. tillaabadani ayaa imaanaysa kadib markii bayaan oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku sheegay in dowladda Mareykanku ay diyaar u tahay in ay suuragal tahay in weerar lagu qaado Tehran ama Iran. Trump ayaa sheegay mar uu shir jaraa'id la qabanayay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo lagu qabtay gobolka Florida ayuu taageeray in weerar degdega lagu qaado Iran haddii Iran ay sii wado inay barnaamijkeeda nukliyeerka tayageliso ama ay diido in heshiis la gaaro. maxamed waa mahadsan tahay, daawadayaashana way mahadsan yihiin. mar kale ayaan soo dhaweynaynaa. waxaan u gudbaynaa xubintii falanqaynta daawadayaal iyo wixii warah ee degdeg ah ee soo kordha ayesha aynu ku hakanno qadar xayeysiina. soo dhowaada mar kale daawadayaal, weli waxaad la socotaan barnaamijkii wararka caawa. waan u imaan doonaa qobrada ka hadlaysa saamaynta Masar ay kala kulmi karto aqoonsiga Israa'iil ee Somaliland, laakiin arrimahan dalka Yemen aynu ka hormarno. maxamed, xalay saaka waa berigii Sacuudiga iyo xulafadiis waxay duqeeyeen dekedda magaalada Mukalla, waxaana la sheegayaa inay beegsadeen 2 markab oo imaaraadka ka yimid, inkastoo hadda wararka soo dhacay ay sheegayaan khasaaraha intiisa badan in ay ka badbaadeen gawaaridii la doonay in la beegsado oo ahaa gawaarida gaashaaban. arrintan maxaa laga yiri, maxayse ka macno tahay duqeyntani? agab la sheegay in laga soo qaaday dekedda Fujairah oo loo waday Mukalla oo lagu taageerayay golaha kumeel gaarka ah ee xogaga koonfurta Yemen ayaa dekeddii ay kasoo degi lahaayeen ee Mukalla weerar lagu qaaday oo ay qaadayaan xogaga kuwanta ah oo ay Sacuudiga ku jirto. waxa ay ku nuuxnuuxsadeen in ay dalbanayaan in xaaladda la dejiyo isla markaana xasilooni lagu soo dabaalo gobolka Xadrimuud iyo Mahara si looga hortago in militariga lagu taageero tallaabo kasta oo Yemen ka mid ah iyadoo aanan wax xiriira ama wada shaqayn lala yeelan xukuumadda qaanuuniga ah iyo xulafada taageeraya. waxaana muuqata in faahfaahin badan ay ka soo baxayso siyaabaha ay wax uga dhaceen dekedda Mukalla warbaahinta carabta oo dhan laga sii deynayo. waa gartay, aad iyo aad waa hagaag. sidoo kale wararka hadda soo dhacaya waxaa ka mid ah in hawada waddanka Yemen lagu arkayo diyuurado markaasi imaaraadka carabtu leeyahay oo ah diyaarado dagaal. sidoo kale imaaraadku waxay hadda ku dhawaaqayaan in si buuxda ugu dhawaaqeen inay ka baxeen heshiiskii ku aadanaa la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada oo ay kula jireen dhanka Yemen ay ka howlanaayeen. warkan waa war hadda soo dhacay oo degdega. dhinaca kale waxaa la sheegayaa inuu kala qaybsamay golihii madaxtooyada ee waddanka Yemen. 3 ka mid ah waxay kasoo jeedaan kooxahan imaaraadka oo taageeraya STC. midka afraad waxaa la sheegayaa inuu yahay 8 ba horta ka kooban yihiin guud ahaan goluhu. mid ka mid ah waxaa la sheegaa inuu aad ugu janjeero dhanka imaaraadka carabta. marka macnaheedu waxa weeyaan hadda 4 iyo 4 iyo golihii noqday, laakiin madaxweynaha golaha wuxuu ku dhawaaqay imaaraadka carabta inuu si degdeg uga baxo guud ahaan waddanka Yemen. xaaladda waddanka Yemen ayaa sidaas imika maraysa. maxamed, xaaladdan maxay ku dhamaan kartaa markaad qiimayso? xulafadan waxay kasoo horjeedeen Xuutiga, laakiin hadda ayagii baa iska soo horjeeda. sida qaraarada ka muuqata Xuutiga intaas ayuu gacanta ku hayaa. dhankan Xadrimuud iyo Almahra oo Cumaan u dhow iyo Sacuudiga ayaana hadda si weyn la iskugu hayaa gacanta. iminka ciddii ku dhigi lahayd iyo ciddii la wareegi lahayd la isku hayaa. maxay arrintan noqon kartaa? waxa ayaantan ba socotay isku day ah kooxo military ah inay isku dayeen inay xukunka marorsadaan gobolada Xadrimuud oo xuduudka la wadaaga waddanka Sacuudiga. waxaana kasoo horjeestay xoogagii maxalliga ahaa iyo qabaa'ilkii. waxaa sidoo kale codkooda ku biiriyey gudoomiyaha golaha oo sheegay in aan loo dulqaadan karaynin in inqilaab lagu sameeyo nidaamkii caalamku aqoonsanaa. imaaraadka in dhowaalaba waxa uu waday howlo u gaara oo uu arrimaha waddanka Yemen ku faragashanayay. haddana waxaad moodaa Sacuudiga iyo imaaraadka inay qoorta isla galeen, inkastoo imaaraadka ay beenaynayaan haddana imaaraadka waxaad moodaa cad aynan ruugi karin inay rudeen
oo arrintii Suudaan ayaa ku qaraxday oo xaalkeedu meel xun maraya haddana haddii ay Yemen ku qaraxdo waxaa muuqata lacag fara badan inay ka baxayso xirfad iyo awood ay ku maareyso colaadda waddanka Yemenna imaaraadku ma hayso waxaana muuqata inay hore u qaadatay ama galgal ay ku yeelatay iyadoo deeq ku gabanaysa jasiiradda la yiraahdo Sukhadara oo hadda ay ciidamaynayso oo saldhigii ay ka dhisayso imaaraadka hore ayaa dhinacyo badan isugu sheegeen in ay faragelin ku hayso arrimaha gudaha ee wadamo badan oo muslim ah oo ay u adeegayso waa sida hadalka loo dhigay xooga kale oo isqarinaya waa gartay waa hagaag imaaraadku hadda warkii waxa xaqiijinaysa hadda inuu warkii degdeg ahaa wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka imaaraadka carabta oo si buuxda ugu dhawaaqday inay ka baxeen isbahaysigii waxa loogu yeero la dagaalanka argagixisada ee ay waddanka Yemen ka wadeen waxaana ay sheegeen si madax bannaan hawlahooda waddanka Yemen inay u sii wadan doonaan taasoo macnaheedu ay tahay xulafadii ay la ahaayeen Sacuudiga inay ka baxeen isbahaysigaasi wuxuu ka koobnaa dhowr wadan Qatar baa ku jirtay Morocco ku jirtay sidoo kale Bahrain baa ku jirtay waxa kaloo ka mid ahayd Kuwait imaaraadka carabta dhankaasna dhammaantood waxay ka soo horjeedaan dhanka xuutiga hadda laakiin waxaad moodaa in isbahaysigaas isku hor yimid waayahay maxamed dhinaca kale aynu ka eegno goor dhaweyto warbaahinta Sacuudiga gaar ahaan telefishinka Alcarabiya wuxuu warbixin ka sameeyay aqoonsiga Israa'iil Somaliland iyo saamaynta ay ku yeelan karto dalka Masar bal qobarada la wareystay iyo xogtaas inoo faahfaahi iyadoo xukuumadda Netanyahu ay isku dayayso inay ka fakato qalalaasaha Israa'iil gudaheeda ku jira isla markaasna ay ka faa'iideysanayso ama ay rabto in ay u wareejiso xiisaha iyo culayska saaran dhinacyo kale oo gobolka ah Israa'iil tilaabada ay ku qaaday dhawaan tilaabada ay dhawaan qaaday ayaa lagu tilmaamay mid khatar ku ah geeska Afrika gaar ahaan Somaliland waxaadna moodaa tilaabooyinkani in ay dardar gelinayaan in Israa'iil ay rabto in ay saldhig military ka samaysato Somaliland taasoo khatar gelinaysa danaha Masar iyo danaha amni ee wadamada Carabta tan lagu sheegay inay tahay tijaabo istiraatiiji ah iyada oo si rasmi ah iyo si qaanuuni ah digniin looga bixiyay aanan marnaba la ogolaaneyn in khatar la geliyo iridda laga soo galo badda cas laguna sheegay inay tahay khad cas taasoo laga yaabo inay ku riixdo gobolka khiyaaro military oo aan hore miiska u saarnayn waxaa sidoo kale nin lafagura arrimaha militariga oo la yiraahdo sareegaas Osama Maxamuud Kabiir oo isla markaasna dhiga akademiyadda militariga ka dhiga arrimaha ciidanka ayaa xaqiijiyay in bayaanadan gaarka ah soo baxaya inay sheegayaan in Netanyahu uu raadinayo in dowladdiisa siyaasad ahaan iyo military ahaan oo xiisad joogto ah ku ilaaliyo si uga ilaaliyo xukuumaddiisa inay burburto waa gartay qabiirku saddex arrimood ayuu ku sifaynayaa tilaabada Israa'iil inoo faahfaahay muxuu ula jeedaa arrintaasi sareegaas Kabiir ayaa sharaxaya xadgudubyada ay qaanuunka caalamiga Israa'iil ku sameysay iyo aqoonsiga ay Somaliland aqoonsatay oo ay u aqoonsatay inuu dal madax bannaan yahay ayaa looga gol leeyahay in ay ku gaarto hadafyo istiraatiijiyad juqraafiyeed ah midda koowaad waxa weeye in ay saldhig military abuurato oo ay khatar ku geliso ama ay kula dagaalanto xuutiyiinta waddanka Yemen oo xuduudkaas aad ugu dhow waa midda labaad waxay rabtaa danaha Turkiga ee Soomaaliya inay carqaladayso waa midda saddexaad waa mid aad khatar u ah inay cadaadis ku saarto Masar toosna ay saameyn ugu yeelato amniga qaranka ee waddanka Masar iyadoo rabta inay xakamayso maraakiibta badda cas maraya ka gudbi raba gacanka Suez sidoo kale waxay rabtaa inay xoojiso Ethiopia oo biyo xireen samaysatay oo arrintaasi siyaasad ahaan xasaasi ka ah dhanka Masar khabiirkan militariga ayaa ku nuuxnuuxsaday in Masar ay si dhaqso ah u cambaaraysay tillaabooyinkan Israa'iil ay qaadayso diblomaasi ahaan
waxayna digniin ka bixisay haddii aanan arrimahaas la bedelin inay qaadayso tilaabo wax ku oola si Israa'iil ay isku daydo inay saldhig military ka samayso Somaliland in Masar markaasi ay haysato aalado iyo qalab ku filan oo ay awood u siinaya inay ilaashato awoodeeda iyo danaheeda qaranka waa sida hadalka loo dhigay waa gartay isla warbixintan telefishinka Al-Carabiya wuxuu waraystay khabiir arrimaha qaanuunka ah isagu muxuu ka sheegay arrintan Maxamed Maxamuud Mahraan oo ah professor dhiga ama macallin dhiga qaanuunka caalamiga ayaa waxa uu aaminsan yahay in Israa'iil ay ku adkaysanayso tilaabada ay qaaday in macnaheedu uu yahay in laga gudbayo waxaan ku yiraahdaa dhanka Masar ay u aragto in Israa'iil ay ka gudubtay khad cas waxa uuna sharaxaad ka bixiyay Masar in aynan haysan khiyaaraad fara badan oo diblomaasiyadeed arrintaana waxay qasbaysaa Masar inay isticmaasho qodobka 51 ee axdiga qaramada midoobay oo ah inay qaado weeraro hordhaca oo ay ku ilaashanayso danaheeda Masar ayaa hadda waxa militarigeeda u jooga Soomaaliya waxa ayna heshiis xagga ammaanka kula jirtaa dowladda Soomaaliya oo qaanuun ahaan u siinaya wadanka Masar in ay agabkeedaas isticmaasho kana hor istaagto isku day walba oo saldhigyo military oo qaanuunka khilaafsan looga sameynayo Somaliland oo loo tirinayo dhulka Soomaalida sida Mahraan oo hadalka u dhigayo wuxuu sidoo kale ku nuuxnuuxsaday siyaasadda juqraafiyaadka ama dhul ahaan fogaanta ma ku noqonayso wax caqabada wadanka Masar xoogageeda waxayna difaacaysaa danaheeda muhiimka ah ee marinka Baabul Mandab Mahraan ayaa ku soo gabagabeeyay hadalkiisa isagoo ku nuuxnuuxsanaya haddii Israa'iil ay isku daydo militarigeeda in ay gobolka ay samayso in gobolka inay geysato ciidamo in aynan la kulmi doonin Masar oo kaliya ama ay ka hor imaan doonin Masar oo kaliya waxa ay ka hor imaanaysaa wadamada difaaca Carabta heshiis la galay 1950kii kaasoo dalalka Carabta ku qasbay inay iska kaashadaan inay ka hortagaan cid allaali cidii jiritaankooda khatar ku ah hagaag maxamed aad baad u mahadsantahay daawadayaashuna mahadsan yihiin inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka daawada si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyadan iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo beer waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo